Mudane Leo Maroyn kusoo dhawaada Garaadkaab Academy kusoo dhawaada barashada cryptocurrency-ga gaar ahaan qaybteeda intermediate level course. Casharkeenan maanta waxaan ku qaadan doonaa casharkii labaad ee barashada Binance Exchange ayaan ku baran doonaa. Haddaba casharkeena maanta waxaan ka bilaabi doonaa qaybtaani midig ayaan ka bilaabi doonaa oo qaybtaasi qofka madaxiisa ay ku sawiran tahay ayaan ka bilaabi doonaa. Qaybtaasi markaan geyno muuskeena waxaad arkaysiin halkaasi emailka aad ku isticmaalayso ee halkaasi kaga soo muuqanaya. Halkaasi haddii aad gelisay sawirkaaga ayaa ka soo muuqanaya qaybtaani oo balaarka hadda aan ka dhigay. Sidoo kale qaybtaani waxaa lagu sheegayaa account-kaaga inuu yahay verified iyo in kale ayaa lagu sheegayaa. Saad u jeediinba hadda anigu waa verified waaye account-kayga. Marka account-kayga waa midkaasi verified ah, laakiin hadda wax yar ayaa ka dhiman marka account-kaani marka waqtigiisa. Sidoo kale qaybtaani waa dashboard-kii waaye. Sidoo kale qaybtaan assets-kii waaye. Qaybtaani waa account, qaybtaani referral waan arki doonaa. Marka haddii aan ku dhufano qaybta iyo dashboard-ka ayaan ku dhufan doonaa. Dashboard markaan ku dhufano kadib halkan waxaa arkaysiin markale haddana image-kaaga haddii aad soo gelisay image-kaagii halkan aad ka soo gelin kartaa. Haddii aad rabtana edit ayaad ku samayn kartaa. Qaybtaasi edit ayaad leedahay. Qaybtaani magacaaga oo username-ka ah ayaa halkaani ka soo muuqan doona. Following haddii lagu yahay, haddii aad followers dad adigu aad u tahay, halkaasi ay ka soo muuqanayaan. Qaybtaani waa deposit-kii waaye. Qaybtaani lacag dhigashadii waaye. Withdrawal lacag la soo bixitaankii waaye. Qaybtaasi ayaguna sidaasi ayay marka u shaqeynayaan. Qaybahani marka qaybahaasi ayaa ugu muhiimsan marka. Qaybtaani haddii hoos aad u soo dhaadhacdana wax yar waxaad arkaysaa qaybtaani holdingska waxyaabo adigu aad haysato. Tether iyo NFT-gaasi ayaa hadda wax yar oo marka ku jiraan. NFT wax anigu aan geliyay ama aan samaystay maahan waxyaabo marka sentyaal ah waaye. Balse qaybtaani USDT-da ayaa lacag igu jirta hadda oo aan haystaa. Qaybtaani waa hot, waxaad u jeediin waxyaabaha hotka ah oo marka oo shidan waaye. Qaybtaasi ayaguna sidoo kale waxyaabahaasi ay hadda ku jiraan marka waa u jeediin. Okay, qaybtaani waa new listing. Waxyaabaha la soo list gareeyay waaye marka mar dhow la soo geliyay Binance-ga waaye. Waxaa ka mid ah marka usual ayaa ka mid ah coin-kan lagu magacaabo. Bengu ayaa ka mid ah coin-kaasi isaguna sidoo kale. Waxaa ka mid ah 1000 cat ayaa ka mid ah. Vana ayaa ka mid ah. Marka dhammaan coins-kani move ayaa ka mid ah. Marka way badan yihiin marka waxyaabaha oo new listing-ka ah ayaguna halkaas ay ku jiraan marka. Halkaani waa varieties-kii waaye. Varieties-ka waxyaabaha adiga ku ah waaye ayaa halkaani aad ka dhigan kartaa. Qaybahaasi ayaad u jeediin hadda marka varieties-ka aniga ah waaye marka qaybahani oo qaarkood trade iyo waxyaabahaasi aan ku sameeyayba. Qaybtaani waa top gainers, kuwa ugu marka faa'iidada badan waaye. 24 saac la soo dhaafay. Waxaa ka mid ah marka VIP ayaa ka mid ah. Vana ayaa ka mid ah. Bengu-ga hadda aan ka hadlaynay ayaa ka mid ah. FTT ayaa ka mid ah. Bond ayaa ka mid ah. Way badan yihiin ayaguna 24 la soo dhaafay waxyaaba marka top gainers-ka ahaa. 24 hours volume-ka ayaad arkaysaa BTC inay tahay marka qiimahaasi soo galeen ayaad u jeedaa 24 hour janjiga. Qaybtaani marka iyaduna qaabkaasi ay u shaqeynaysaa. Haddii aan ka socono marka qaybahani waan ka socon doonaa. Sidoo kale waxaa ka mid ah waxyaabaha marka qaybtaasi ku jira oo dashboard-ka marka aad soo gasho aad arkaysaa. Waxaa ka mid ah marka sidoo kale referral-kii ayaa ka mid ah. Setting-kii ayaa ka mid ah. Account-kii ayaa ka mid ah. Way far badan yihiin. Okay, qaybtaani haddii aan qaybtaani aan fiirino marka qaybtaasi iyaduna waxaa ka mid ah qaybahani account markaan ku dhufano. Account waxaa hoos imaanaya security-ga ayaa ka mid ah. Security haddii aan ku dhufano marka waxaan arkaynaa security-ga ayaa arkaynaa marka. Halkan waxaad u jeedaa baski biometric qaybtaani ah inay tahay hadda off waaye marka enable ka dhig ayaa lagu leeyahay. Haddii aad rabto aad ka dhigi kartaa. Anigu balse waxaan isticmaalaa authenticator app, Google Authenticator oo mobile-ka ayaa on ah. Sidoo kalena phone number ayaa siguna sidoo kale oo waxaa ah marka aan isticmaalaa. Marka labadaasi ayaa hadda igu jira. Halkan email-kaaga ayaad u jeedaa.
qaybtani login passwordkaagi waaye qaybtaasi qaybta aad ka maamuli lahayd waaye qaybtani manage haddii aad dhahdo haddii aad rabto inaad passwordkaaga aad bedesho waxyaabahaasi waaye qaybtaasi qaybtani advanced security qaybta ay ku qoran tahay marka iyaduna waxaa lagu leeyahay account connection iska waaye connect your account with third party account is lagu leeyahay manage waad ku samayn kartaa halkan anti phishing code marka hadda waa off ay naga tahay enable ku samayso ee lagu leeyahay protect your accountigaaga marka ka hortag u sameey from phishing attempts waxyaabaha oo phishing waxaa lagu magacaabaa waxyaabaha marka oo dadka marka scammerska nooc ka mid ah marka oo phishing ay kugu sameynayaan oo accountkaaga iyo passwordkaaga iyo emailkaaga iyo waxyaabahaasi marka inay isku dardaraan oo isku geeyaan oo marka meeshaasi ay isku dayaan inay ka soo saaradaan marka passwordkaaga iyo waxyaabahaasi waaye marka qaybtaasi attemptigaasi ay sameynayaan dadkaasi ka hortagaya lagu leeyahay enable qaybtaasi marka qeybahan way badan yihiin halkan waxaa lagu leeyahay disable account ayaad ka dhigi kartaa account managementiga disable account ayaad ka dhigi kartaa sidoo kale delete account ayaad dhigi kartaa gebi ahaanba inkastoo aanan kugula talinaynin inaad sameyso delete account iyo disable intuba okay qaybtaasi haddii aan ka socno qaybta waxaa hoos imaanaya account oo ka mid ah identification haddii aan ku dhufano marka iyaduna waxaan arkaynaa marka accountkeena ayaan arkaynaa iyo xaaladiisa sida hadda aan hore aan usoo aragnayba halkan waxaad u jeediin marka qofkani magaciisa aad u jeediin marka magacaasi halkan kusoo qormaya halkan waxaad arkaysiin wadanka adigu aad joogto oo marka verified aad ku samaysatay baasaboorkiisa ayaa halkan aad u jeedaa marka inuu yahay Soomaali halkan qaybtan yar oo circle-ka marka waxaa soo galaya sawirkaaga ayaa soo galaya halkan waxaad u jeediin verified in la leeyahay ayaad u jeediin qaybtani verified ayaa lagu leeyahay verification levelska waa verified fiat limit of 50k USD daily waxaa la ogol yahay marka maalintii 50,000 oo dollar inaan marka aan la bixi karo ayaa la ogol yahay fiat aan ku samaysan karo verified plus ayaa ii dhiman qaybtaasi fiat limit of 2 million USD daily ayaa la leeyahay marka 2 milyan oo dollar maalintii si aad u samayso marka fiat aad ugu samaysato ayaa la leeyahay lagu ogol yahay verified plus marka tahay required waaye weli ma dhameystirin verified plus sidoo kale higher fiat limits ayaa ku jira iyaduna waa required marka waxyaabahaas ayaa ku jira halkan hadda waxaa la leeyahay anigu please upload a new ID document before it expires or your Binance account will be restricted to withdrawal only mode 30 days after the expiration date ayaa la leeyahay marka anigu waxaa marka gabagaba ah baasaboorkayga dhicitaankiisa sidaas darteed fariintaasi ay ila wadaagaysaa Binance maalmahani oo dhan marka qaybta haddii aan ka socono marka qeybahaasi ayaa ka mid ah marka qaybtani haddii aan kusoo laabano marka qaybta iyo dashboard ayaan leenahay dashboard markaan dhahno kadib haddii aan dhahno qaybta marketiska aan ku dhufano marketis markaan ku dhufano kadib halkan waxaad arkaysaa marka dhammaan waxyaabaha marka hot coinska halkaani ah waad u jeediin BNB kamida BTC Ethereum ayaa kamida mo aad dhihi kartaa lagu leeyahay qaybtaasi mo markaad dhahdo kadib waxaad u jeediin ilaa iyo 10kaani ayaa hadda marka hot gainerska marka usual waad u jeedaa Zen ayaad u jeedaa Bebe ayaad u jeedaa Bangu ayaad u jeedaa Doge ayaad u jeedaa Solana XRP Ethereum qaybtani waa top gainerska waaye top gainers iyo top hot gainer coins waaye qaybtani hot coins waaye qaybtaasina waa top gainerska marka VIP ayaa kamida Vana ayaa kamida qeybahan ayaa kamida haday aan soo arkaynay marka okay top loserska waa kuwan iyaguna sidoo kale halkaan kaaga muuqda marka okay top volume ayaad arkaysaa marka BTC Ethereum XRP Solana Doge ayaa volume ahaan marka top ugu ah nambaradaasi ku kala jira qeybahan marka sidaasi ay u shaqeynayaan iyaguna sidoo kale si la mid ah haddii marka aan dhahno mar kale marketiska aan ku laabano marketiska markaan ku laabano kadib halkaani waxaad u jeedaa hadda all crypto ayaan leenahay all cryptocurrency haddii aan dhahno waxaad arkaysiin dhammaan cryptocurrency ee halkaani ku jira marka oo marka ilaa iyo page-kaasi ayaad sii raaci kartaa haddii aad u baahan tahay
halkan waxaad dhihi kartaa favorite aad dhihi kartaa favorite markaad aado kadib waxaad u jeediin dhammaan waxyaabahani ayaa anigu hadda favorite ah oo anigu aan calaamaystay sababtoo ah haddii aan dhaho qaybta all aan tago oo marba coin aan raadiyo maanta oo dhan marka waqtiga ayaa iga lumaya sidaa darteed waxyaaba anigu aan ish aan ku hayo oo aan rabo inaan maalgashi aan ku samaysto ama trade aan ku samaysto ama aan xoogo marka xogtooda iyo marka macluumaadkooda iyo newskooda iyo waxyaabahaasi aan helo aan rabo waxaan ku samaysanayaa marka favorite-kaasi aan ku samaysanaya si aan ugu sameeyo marka favorite-kaasi qaybtan spot-ka ayaan imaan doonaa spot markaan imaano kadib halkaas waxaad u jeedaa marka dhammaan qaybahani kuwana waa marka favorite ay yihiin kuwana favorite ay maahan tusaale marka haddii aan rabo inaan ku samaysto midka aan rabo qaybta search ayaan ku qori doonaa waxaan leeyahay XRB ayaan leeyahay tusaale ahaan XRB markaan dhaho kadib waxaad u jeediin qaybtani marka xidigaasi yar ayaan ku dhufan doonaa markaan ku dhufto kadib jaallo ayuu isku bedelaya kadib sidaasi ayuu favorite igu yahay marka haddii aan tago marka favorite-kayga haddii aan tago XRB halka ayaan ka arkaya marka favoriteska haddii aan ku dhufto XRB waa midkaani haddii aan tiro marka XRB halkaan aan ka tiro kadib favorite aan ku dhufto XRB marka favorite-ki aan ka arkaya oo waa midkaasi okay tusaale haddii aan ku laabano mar kale spot-ka aan ku laaban doonaa spot markaan ku laabano kadib halkaan search-ga waxaan ku qori doonaa mar kale waxaan leeyahay halkaasi coin ayaan dooran doonaa sol ayaan leeyahay solana waaye sol markaan dhaho kadib oo USDT ah sol USDT ah waa midkaani weeyaan waan ku dhufan doonaa marka kadibna sidaasi ayuu igu galay marka qaybta iyo sidoo kale kadib waxaan leeyahay halkaani move ayaan leeyahay move waa uu igu jiraa markaas aad u jeediinba balse asigoo BNB ah haddii aan rabo tusaale ahaan waan ku dhufan doonaa asiguna waa uu igu jiraa marka okay qaybtaasi waxaan leeyahay marka jasmi ayaan leeyahay jasmi markaan dhaho kadib waxaan leeyahay qaybtani ayaan ku dhufan doonaa okay ayaan leeyahay okay markaan dhaho aan iska tiro qaybtaasi oo aan dhaho marka favorite-ka ayaan ku dhufan doonaa favorite markaan ku dhufto kadib jasmi halkaan ayaan ka arki karaa marka jasmi okay page-ka labaad aan tagno aan arko marka haddii uu soo bandhigayo jasmi okay waa hagaag waa midkaani page-ka labaad ayuu ku jiraa marka page 2 ayuu ku jiraa jasmi okay marka qaabkaasi ayaad u samaysan kartaa favorite aniga intaan oo dhan waxaa hadda favorite ilaa iyo 48 coin ayaa spot-ka igu jira oo favorite hadda marka qaabkaasi ayaad u samaysan kartaa sidoo kale qaybtani spot-ka marka aad imaato kadib qaybahani waxaa hoos imaanaya lacag ayaa hoos imaanaya USDT ayaa hoos imaanaya marka FD USDT ayaa hoos imaanaysa USDC ayaa hoos imaanaya TUSD ayaa hoos imaanaya BNB BTC Ethereum BTC haddii aan dhahno fiiri tusaale BTC waxyaabaha hoos imaanaya oo ku dul dhisan dhammaan waxyaabahan ayaad u jeedaa oo BTC marka lacag ahaan ah sidoo kale Ethereum ayaa ka mid ah Ethereum markaan dhahno XRB ayaa ka mid ah oo BNB ayaa ka mid ah Solana ADA TRX ayaa ka mid ah Avax ayaa ka mid ah Link ayaa ka mid ah dhammaan waad u jeediin waxay ku jiraan marka blockchain-ka Ethereum-ka ay ku dhisan yihiin oo ku dul jiraan marka ku dhisan yihiin marka qaabkani waaye qaybtani iyaduna halkaan aan ku soo afmeeri doonaa waxaan rajaynayaa inaan isla fahnay casharkeena maantay waxaan idin leeyahay marka soo dhawaada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh